madaxweynaha Mareykanka Trump sababta uu xilka uga qaaday ee uu qafaashay Maduro waxay ahayd markii uu xaqiijiyay inuu dili doono Sheekhi Allah u naxariisay Iran waxa uu ogaa Iran in ay haysato hubka ugu culus ee ay ku dagaalami doonto uu noqon doono gacanka Hormuz gacankan oo baladhkiisu yahay 22 kiiloomitir oo barakaysan isla markaana saliidda adduunku 70% ay marto wuxuu ogaa marka Iran la farasaaro in uu shidaalku kor ku doono gacankana uu xidhmi doono sida daraadeed uu Mareykanku shidaal waay doono qorshaha Mareykanka ayaa ahaa in saliidda badan ee qaniga ah ee Venezuela uu isagu farataysto taasna uu ka dhigto backup 300 bilyan oo barmiil oo ay u dhex dabaalanaya oo Venezuela uu ka dhacay Maduro sababta loo xiray tan ay ahayd dalkaana wuxuu ka samaystay dawlad bombala ah oo uu isagu maamulo tani waa sababta uu maanta adduunku u qaylinayo Trumpna uu qoslayo